kulanti wanaagsan daawadayaal waa mar kale iyo barnaamijkeennii falanqaynta wararka warbixinada Maqal Media Group. daawadayaal halkan nagala socotaan waa Maqal Media Group, shirkii golaha wadatashiga qaranka ee dowladda dhexe ee Soomaaliya ayaa maamul goboleedyada ayaa ku soo gabagaboobay magaalada Muqdisho tan iyo 25 December ilaa 8 December ayuu ka socday shirkaas uu shir gudoominayay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Dr. Xasan Sheekh Maxamuud. shirka golaha wadatashiga qaranka ayaa la sheegay inay arrimo dhowr ah isku afkarteen, taasoo heshiismankii la saxiixay ee madaxweynaha Puntland uu ka biyadiiday inuu saxiixo. madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo golaha wadatashiga qaranka ayaa ka wada hadlayaanba falanqeeyay hanaanka garsoorka dalka iyo arrimaha federaaleynta dalka. madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa la sheegay in uu maamul goboleedyada uu u sheegay dowladda dhexe ee Soomaaliya awoodda ay leedahay iyo tan maamul goboleedyada, taasuna ay Soomaaliya tan iyo markii lagu dhawaaqay inay Soomaaliya hanaan federaal qaadatay ay Soomaaliya u muuqatay inay isku dhaxyaac weyn oo ka socday. maamul goboleedyada wadanka Soomaaliya ayaa marar badan ka qayb galay shirar waaweyn ee Geeska Afrika ka dhacayay, taasoo aysan dowladda Soomaaliya aysan u xil saaran. madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo horay mucaarad uga ahaa madaxweynihii ka horeeyay ayaa hadda u muuqda inuu dib weyn ay ku hayaan maamul goboleedyada dalka. madaxweynaha Puntland ayaa la sheegay inuu heshiismanka laba ka biyadiiday inuu saxiixo, taasoo uu sheegay inuu ka soo fikiri doono golaha wadatashiga qaranka uu hogaaminayo madaxweynaha jamhuuriyadda ahna taliyaha guud ee ciidamada xoogga dalka ayaa carabka ku adkeeyay inuu dalku u baahan yahay sharci kala haga amba hay'ado kala haga garsoorka iyo arrimaha federaaleynta wadanka Soomaaliya. Soomaaliya ayaa qaadatay sanadkii 2004 ilaa hadeertan federaal la sheegaya, balse wax weyn aysan u suuro gelin arrimaha dhamaystirka dastuurka iyo arrimaha garsoorka ee Soomaaliya tahay meel ka liidato. dowladda iyo golaha wadatashiga qaranka ayaa bogaadiyay howlgalka ballaaran ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ee gobolada wadanka Soomaaliya uga xoreynayaan ururada argagixisada. dowladda Soomaaliya ayaa carabka ku adkeysay inay ka xun tahay arrintii ka dhacday magaalada Baydhabo. madaxweynaha iyo dowladda Soomaaliya iyo ra'iisul wasaaraha horbood ayaa sheegay in ay aad uga xun yihiin shaqaqadii amba dhibaatadii weyneed ee ka dhacday magaalada Baydhabo. isku hormaad ka dhacay magaaladaas ayaa waxaa ku dhintay dad gaaraya ilaa 20 ruux oo shacab iyo dadkii dagaalamayay ah. dowladda ayaa u saartay saraakiil sarsare oo arrintaas ka warbixiya. madaxweynaha Soomaaliya ayaa horay uga sheegay jimcihii hore masaajidka Isbahaysiga Islaamka inuu ka xun yahay gacan ka hadalka ka dhacay magaalada Baydhabo. shirka golaha wadatashiga qaranka Soomaaliya ayaa ku soo gabagaboobay 28 bishan magaalada Muqdisho. madaxweynaha Xasan Sheekh Maxamuud iyo dowladdiisa ayaa doonaysa inay maamul goboleedyada awood badan inay ka dhinto, taasoo maamul goboleedyada Soomaaliya ay horboodayso Puntland ay doonayso waxyaaba awoodda federaalka qatar ku ah. madaxweynihii ka horeeyay Xasan Sheekh Maxamuud ayaa isku dayay inuu yareeyo miciyaha maamul goboleedyada. Soomaaliya ayaa lagu yaqaan inay arrimahan dan shaqadooda ahayn ay dhexboodaan, taasoo ay ka mid tahay jaangoynta siyaasadda arrimaha dibadda iyo arrimaha gudahaba. dowladda federaalka Soomaaliya ayaa u muuqata inay ka xun tahay hab dhaqanka maamul goboleedyada Soomaaliya oo ah mid mararka qaar aad u muuqda inay la siman yihiin amba la awood yihiin dowladda dhexe. dowladda Soomaaliya ayaa iyaduna amaamudo hayso maamulada iyo dowladda dhexaba garsoor isku wada raacsan yahay sida ay wararku sheegayaan. dowladda ayaa doonaysa garsoor u dhaxeeya dowladaha xubnaha ka ah iyo dowladda federaalka, taasoo ay Soomaaliya u baahan tahay dhinaca garsoorka oo midaysan.
madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Deni ayaa ka diiday inuu saxiixo arrimahan waaweyn taasoo uu sheegay inuu kasoo fikirayo waxa uu ka yeelayo maamul goboleedyada kala ah madaxweynaha Jubbaland Axmed Islaam Axmed Madoobe, madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Maxamed Laftagareen, madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor, madaxweynaha Hirshabelle Cali Guudlaawe Xuseen, gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho ay qalinka ku doogeen siday dadku sheegayaan ama goob joogayaashu. balse Puntland ay u aragto mid ka dhan ah awoodaheeda iyo nidaamka madaxtooyada Soomaaliya iyo maamul goboleedyada ayaa isku soo qaaday arrimaha canshuuraha baaxinta amba awoodeynta heer federaal ee dowladda Soomaaliya ay doonayso inay gobolada wadanka Soomaaliya inay si ballaaran uga howlgasho. Puntland ayaa u aragta mid ka dhan ah arrimaheeda iyo maslaxadaha guud ee arrimaha Puntland. daawadayaal warkeen intaas aan kusoo gabagabeynaa. nabadgelyo.